u awoodin aabbahan Soomaaliyeed inaad caawiso haddii aadan u awoodin aniga kulley wixii aan ku caawi karo waan ku caawiyey haddana waxaan jeclahay alxamdulilah haddana waxaan jeclahay in aan sii maxaa ku yirahdaa sii gaarsiiyo bulshada igu xiran si iyagana qofkii u awooda inuu wax ku taro wax ku caawiyo qofkaan u awoodina inuu usii sheergareeyo si ay u gaarto walaal Soomaaliyeed walaal kale oo wax la bixi lahaa si u gaarto marka guys waad ku mahadsantihiin meesha maanta aad joogo idinka ayaa isoo gaarsiiyey waxaan rajeynayaa intaan in ka badan inaad gaarsiin doontiin shuruudii wax yar ayaa maxaa ku yirahdaa iga haray si xushmad leh waxaan idinkaga codsanayaa in aad muuqaalka aad ii sheer gareysaan si dad badan u gaaro qof alla qofka soo gaarna subscribe ha ii saaro si shuruudda aan u buuxiyo waana ku mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام أصحاب أمريكا سعودي ونجي عليك جوكتين ومصر سيعو أو ديبو صولاتي جايز runtii waad ku mahadsantihiin meesha aad gaarsiiseen aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa runtii sharaf iyo karaamo ayaad leedihiin abaalkiina lama aha midaad iloobi doono laakiin runtii wax yar aan oo dhiman wax yar anoo dhiman waxyar nooga dhiman waxaan ku yirahdaa shuruudihii waxyar nooga dhiman waxaan jeclan lahay micnaha in xoogaa aad isii saacidaan si shuruudda aan u buuxiyo wax yar ka dhiman intaas kadib fadlan haddii ay tahay booqashadii kugu horeysay aad soo booqato janaalka waxaan kaa codsanayaa subscribe like share iyo comment wax maskaxdayda buuxayo waa inoo muhiim waad mahadsan tahay haddii hore aan nala joogtayna waad ka mahadsan tahay maadaama aad maxaan ku yirahdaa nala joogtay fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad hore nala joogtay like iyo share comment inaad maxaan ku yirahdaa nagu caawiso si dad kale ee muuqaalku u gaaro annagana shuruudii nagala rabay si aan u dhammaystirno waa mahadsantihiin guys runtii waxaan ku fikiray in qof caana inaan raadiyo si share out iyo wax lamid ah igu sameeyo laakiin waxaan ku fikiray tale iyo tusaalo kadib waxaan ku fikiray in idinka aad soo bandhigto in aad idinka i gaarsiisaan meel macquul inaad gaarsiisaan dabcan idinka ayaa gaarsiin kara sababtoo ah shalay hebel iyo heblaayo yaa gaarsiiyey booska ay joogaan dabcan shacabka Soomaaliyeed unbaa gaarsiiyey soo ma marka anigana booskaasoo kale idinka ayaa gaarsiin kara fadlan si xushmad leh waxaan idinka codsanayaa in aad gaarsiisaan shuruudaha wax yar nooga dhiman wax yar wax yareys ayaa nooga dhiman marka si shuruuda ay noogu buuxsanto waxaan idinka codsanayaa si xushmad ay ku dheehan tahay walaaltinimo soomaalinimo muslimnimo ku dheehan tahay in aad subscribe iyo like iyo share aad nagu caawisaan maxaan ku yirahdaa waad mahadsantihiin muuqaalkan maanta wuxuu quseeyaa runtii hadda salaad subax waa xilli subax salaad subax ayaa 10 daqiiqo ka hor maxaan ku yirahdaa ka soo baxnay runtii waxaan ka soo kacay 9 saac bar waxaan arkay muuqaal YouTube ka yaalo muuqaalkaas oo ay soo dhigtay maamo sharaf iyo cizi iyo karaamo intaba kule magaalada Nairobi maama Shukri Masala YouTube keena ku arkay muuqaalkaas runtii waxay kaga hadlaysay aabbo Soomaaliyeed oo dhibaataysan runtii muuqaalkan muuqaaladii hore ka dumay aabbo Soomaaliyeed oo dhibaataysan waliba haysta caruur kana soo qaxay maxaa ku yirahdaa dalka Yemen waa aabbo Soomaaliyeed oo dhibaataysan caruur haysta kana soo qaxay dalka Yemen caruurtaasna hooyadood ay ku geeriyootay dagaaladii ka soconayay Yemen sida oo maxaan ku yirahdaa oo inoo sheegayo waa arki doonaa muuqaalka
oo afkiisa oo inooga caddeynayo wuxuu leeyahay ama siduu dhahaba gabadhayda iyo xaaskayga ayaan soo duugay inta aanan ka soo bixin yemen marka magaalada Nairobi markaa imaanayana cidna kama aqoonin cidna igama soo horeynin cid aan isku haleynayay oo Soomaali aan ahaynna ma jirin macnaha family qaar la siiyay ayaa qabtay qol ayay si ku meel gaar u dajiyeen waa ku meel gaar macnaha inta iska deg lama dhihin kunoolo طبعا waxa laga yaabaa qoyskaas garabka siinayo ayaga laftigooda inay yihiin qoys kale oo iska dhibaataysan laakiin ay ku caawinayaan meel uu ka hoydo seexdo asaga caruurtiisa runtii qol ayaa si ku meel gaar loo siiyay oo intii aad wax ka helayso Soomaalida ee wax kaaga soo aruurinayaan qolkan iska sii deganaa marka waxashana guri iska kireyso marka muuqaalkiisii ugu horeeyay wiil Soomaaliyeed oo aan halkan ugu mahadcelinayo oo aan leeyahay qalbiga ayaan ka si maxaan ku raadaa qalbiyan biniya ayaan ku mahadcelinayaa walaalkay Soomaaliyeed oo waad mahadsan tahay wuu u tagay uu booqday muuqaal ayuu ka soo duubay muuqaalkii ay TikTok soo galiyay طبعا TikTok inoo ku aragteen ayaan rajeynayaa muuqaalkii TikTok ayaa la soo galiyay maama Shukri masala muuqaalka TikTok ayay ka aragtay sidaas ay maxaan ku raadaa u booqatay anigana macnaha TikTok kama arkin laakiin sida maxaan ku raadaa odayga sheegayo iyo maamada ay sheegayso maama Shukri ay sheegayso muuqaalka anigu waxaan ka arkay YouTube-ka maama Shukri masala YouTube-keeda ayaan ka arkay waxayna ahayd waa saacado ka hor 9 saac iyo bar markii aan soo kacay kadib ayaan YouTube-ka fiirinayay marka إن شاء الله تعالى موقالك سيان رما إن نحوغا رياكشن ير كبحنو موقالكي إن ير أو كوبن أنا سأعرف الموقال وركيس دقيستان إن شاء الله يعاونات وباهية لكن حالته وكجرو ينولش وكجرو وحاول مثل فيرسان كرماءها مركو حرجينا يا إن دمقتان ونحريستان عاد فيرسان وضغا وسوق المكان يسدح العرورة رجدا إن شاء الله إن وسوق الوبا عاد كاغا نخرقات أنا أبو بكر إمام بن علوي ما شو حمرتي ورجعي شكري ولا شيء شكري ومقالي بدويسو وتعرف سمعتي أما وحيابها يقول لك كاسو أنا جو يمن كلمت صوت ماشي كده حاسس أنا عندي وكاسو أنا عندي راسي أنت أنا هذا مدة 6 بلون وهل مالك ما دريش كده يعني جوها يجوا الرجال أنا جيرين أهل أنت سمع ما أنت أنا جيرين ولا أنت ليه بروي جوها أنا جيرين شخص أنا بيسن يعني استحيل يعني نور أدق أيام مرايا ما له وجه مقال ينزل الحمد لله تعالى بعد سوق السريع الله وحشين بعد يعني ما شاء الله شوف في على روكين الحمد لله أنا يجينا أنا دول صاروا كيا دول وحد الجواب أسرع مدة جنا ما نلحن وضدك وكسر دول دقيق على كل حال الحمد لله يبصيها وبالوقت الحمد لله يبصيها وإحنا يا أولادي الصوماليين بلون الجوبان كفر بنتي أبوي كرم ويصدري الحمد لله أنا أحسنها سويت الحرير الذي ما يقتنع بالقليل ما يقتنع بالكثير إله سبحانه وتعالى يدك الإله وحنآت وإحسنها إلى السلام عليك الشيء سببت ما أنت محاكر بالشعبي ومدي الصومالي يا قلبي استشعر أن هذا العناية ما هاد قاسنا إلى العناية بعد الله سبحانه وتعالى وإقرب استاجر الحمد لله بانكم العناية ما تحت اسكول كان كي مهم كان كي يهتم تفسير القرآن كان الحمد لله شوية ما جواب وصوب القرآن هذه الحدود بين الحمد لله العناية إن في عن ماركي رسعة في عن إن سميت سوف واجب قبضي سارة لا قبضي واجب ساري
caruurta adiga aabbo ah adiga waalid u ah wax walba ku qabo diin bar edeb bar nidaam bar wax walba inay ku saaran marka walaaleyda muslimiinta ah ayaan mahadcelinaya kadib salaabada labaad aniga doonaya inaan sameeyo din shar ahaan ama mustaqbal ahaan markaan ka hadlo din shartaan leebaa dad baa tola waxaan tolaa daahiyada waxaan tolaa fadhiyada nooc walba ha ahaado waxaan tolaa caruurada mashaakilka laakiinse dhibka waxaa waaye aniga shaqaan ama dukaan anigi ma haysto meel aan ka dulbilaaba ma haysto fahmaysaa guys isla aragtida ayaa may xataa ku ilaalinaya ma ku ilaalinaya haddii aan ilaalo shaqaanaan iibsanaa dhinaca kale xoogaa iga sii dhaafani meel halaan meeshaan isiraado dhinaca niib dhinaca kale haddana abahan horta niyadda kama jabna waayo wuxuu aaminsan yahay maadaama soomaali uu ka dhashay soomaali uu yahay soomaalinimadaas inuu wax ku helayo marka awalan haddii niyadda ay kaa dilan tahay oo yaa wax kuu qabanaayo yaa maxaa ku rahdaa wax kuu samaynayo intee wax ka helay yaa wax ku siinayo haddii niyaddaada ku jirto micnaha ma helaysid laakiin mar haddii allihii ku abuurta aad aaminsan tahay qalbigaadana saafi u yahay aad aaminsan tahay inaad wax helaysid insha allahu tacaala waa helay wallaahi wuxuu ka dhawaajiyey waan ku faraxsanahay micnaha inaan soomaali ka dhasho waayo waa lasoo dhaweeyey si fiican loo soo dhaweeyey guryaa la dejiyey raashin iyo waxbaa la siiyey lacago iyo waxyaabo yaraa loo soo arooriyey oo maalmo ama micnaha bil camal uu ku joogi karo dabcan aabbo soomaaliyeed waaye caruur ayuu wataa waxaan malaynayaa 3 ilaa 4 caruur inay yihiin waa rajo hooyo male hooyadood iyo gabar la dhalatay gabar iyaga la dhalatay iyo hooyadood waxay ku maxaa ku raada ay ku dhinteen dagaaladii Yemen ka dhacay marka wuxuu kaloo aabahan Soomaaliyeed uu ka dhawaajiyey in uu leeyahay xirfad harqaanimo micnaha marka wuxuu dhahay wax yar oo ayaa la isku kayso aadiye la siiyay haddii inta yar la siiyay harqaankii aan geliyo micnaha ahaan harqaan iyo waxa lamid inta ku gato micnaha waxoogaa waxaan ka boqolay haddana in micnaha wixii la cun lahaa meesha ay ka baxdo marka lacag yaraa haysto harqaan lama geli karo dhahay oo haddii harqaan aan ugo wixii la cun lahaa maqan haddii wixii la cun lahaa aan ka fikirana oo micnaha nin oo xulay nin xirfad lahaa ahay marka micnaha mustaqbalka in aniga aan shaqaysto oo aniga aan wax qabsado nafteyda aan wax taro oo aanan dad Soomaaliyeed dhibina rabaa u leeyahay marka wuxuu u baahan yahay in hal mar la caawiyo marka qof allaale qofkii wax uu awoodo wax allaale waxay noqoto $10 war xabad timira ugu yar waa sadaqo sooma rasuulka calayhi salaam maxaa ku wuxuu dhahay xabad timir baad tahay waa ku sadaqo waa xabad timir daniysto oo qof maskiin oo baahan asiiso waa ku sadaqo sooma marka sadaqo yaraan ma laha 10 hadaa awoodo 20 hadaa awoodo 5 hadaa awoodo 30 hadaa awoodo 50 hadaa awoodo number uu leeyahay numberkiisa shaashada uu ku qoran yahay muuqaalka hadda aan daawanayay shaashadiisa ayuu maxaa ku qoran yahay waa 0792 330177 meesha ayuu ku qoran yahay waa kaasa kale muuqaalkana waad ka arki waad ka arki doontaan marka intaas kadib waxaa jiro dad inta badan markii dad la caawinayo kale waxyaabo qaldan ku fikira runtii aniga waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho aabahan Soomaaliyeed wuxuu joogaa magaalada Nairobi runtii ima yaqaan asaga anigana ma yaqaani Soomaalinimo ayaan si Soomaalinimo u jeclaystay inta boqolaalka qof aniga YouTube-kayga kumanaan qof kuma xirna boqolaalka qof igu xiran subscribe-ka maxaa ku radaa ii saaray ayaan jeclaystay inaan la wadaago si iyagana ay dad kale u sii gaarsiiyaan haddii aadan awoodin xitaa share haddii aad dhahdo waa ku sidaqo haddaad sii share garayso waxaa laga yaabaa qof wax la baxaayo ama wax la bixi lahaa
inuu gaaro inuu qof arko qofkaas arkayna in uu sadaqadii la baxo marka adigana ajir ayaa maxaa ku yiraahdaa ku leedahay marka waxaan jeclaystay in muuqaalkan aan idin soo duubo aan idin soo gudbiyo aan in yiraahdo walaalaheeyo aan aabahan dhibaataysan aan caawino aan garab istaagno nambarkiisa aniga meesha waa kusoo qori doonaa sida uu ilaahay ula ogyahay sida uu yahay laftigiisa kusoo qori doonaa waa ogahay dad soo caytamaya jiro laakiin aniga waxaa ku yiraahdaa in qof bini aadana caawiyo sharafteedaba haddii maxaa ku yiraahdaa ay ku dhumayso waa caawinaya macna sababtoo ilaah subxaana watacaala ayaa igu amray ifaray inaan caawiyo qof alaal qofkii dhibaataysan inaan caawiyo marka guys waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan daawateen fadlan haddii booqashadii kugu horeysay tahay aadna soo booqato subscribe like share comment haddii hore aad nala joogtana waad ku mahadsan tahay waxaad nagu caawisaa nagu taageertaa inaad muuqaalka noo laag garayso noo share garayso wixii maskaxdaada ka guuxayna dhacdhaca nagu soo sii insha allahu tacaala waan kaaga soo jawaabeynaa runtii adiga aadan u awoodin aabbahan soomaaliyeed inaad caawiso haddii aadan u awoodin aniga kolley wixii aan ku caawi karo waan ku caawiyey haddana waxaan jeclahay alxamdulilah haddana waxaan jeclahay in aan sii maxaa ku yiraahdaa sii gaarsiiyo bulshada igu xiran si iyagana qofkii u awooda inuu wax ku taro wax ku caawiyo qofkaan u awoodina inuu usii sheergareeyo si ay u gaarto walaal soomaaliyeed walaal kale oo wax la bixi lahaa si ay u gaarto marka guys waad ku mahadsan tihiin meesha maanta aad joogo idinka ayaa isoo gaarsiiyey waxaan rajeynayaa intaan in ka badan inaad gaarsii doontiin shuruuddii wax yar ayaa maxaa ku yiraahdaa iga haray si xushmad leh waxaan idinkaga codsanayaa in aad muuqaalka aad ii sheergaraysaan si dad badan u gaaro qof alla qofka soo gaarna subscribe ha ii saaro si shuruudda aan u buuxiyo waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka aad daawateen waad ku mahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa salaamka taas waa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu peace and love